بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى warkooban waxaynu ka tilmaami doonaa sidaynu u soo dhoweynayno ama u istiqbaalayno bisha Ramadaan oo aynu ognahay inay ka mid tahay arkaantii islaamka oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan ayaa lagu bineeyey uu nabigu tilmaamayo shantaasi ay ka mid tahay markaa waa sawmu ramadaan bisha ramadaan in la soomo idan rukni weyn oo ka mid ah arkaanta islaamiga ayaynu isku daynaa inaynu gudanno nabiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ugu bushaarayn jiray waa xadiidka sunan النasaa'i ku yaala sheekh alalbaanina saxiix ligayri ku tilmaamayo wuxuu nabigu leeyahy ataakum ramadaan shahru mubaarak farad allahu caza wajala calaykum siyaama waxaa idin yimi bishii ramadaan oo bil barakaysana oo ilaahay subxaanaه wa tacaala soomkeeda idinku waajibiyey albaabada samadaa la furaa ama albaabada jannadaa la furayaa albaabada naartana waa la xidhayaa buu nebigu tilmaamay shayaadiinta kuwooda waaweyn ee maradada ana shaydaannimada ku mudhxay kuwaana waa la xidhayaa waxaa ku jira buu nebigu ku bushaareeyay habeen kun habeen ka fadli badan qofkii khayrkeeda laga mamnuuco ee khayrkeeda heli waaya kaasi waa khayrlaa wuu nebigu ku tilmaamaya faqad xurim yacni waa mid khayrka laga mamnuucay sida ogeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaaraynayaa qiimaha ay ku leedahay dadka muslimiinta agtooda iyo sida la rabay in loo weyneeyo waxaa kuugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam weyneynteeda waxa uu ku tilmaamay oo runtii keensanaya in qofka muslimka isku dayo inuu bishatan uu u diyaar garoobo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee sunan ibnu maaja ku yaala sheekh alalbaanina uu saxiixinaya ama xasan ku tilmaamayo طalxa ibnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy laba nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo mar soo wada islaamay oo islaamnimadoodu mar qura wada ahayd طalxa ayay la joogeen waxaa mide aad buu u dadaali jiray laakiin labaduba waa dadaalayeen laakiin nin baa dadaalkiisu aad u muuqday markii dambena jihaad buu istishaad ku qaato shahiid buu noqday kii kale wuu ka nolol dambeeyey oo sanad buu sii noolaa kadib buu sanad dabadeed kii kale dhintay riyo ayuu ku riyooday markaa طalxa ibnu cubaydillaah riyada wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo dabeetana albaabkii jannada inta la furaa kow waxaa loo yeedhay kii dambeed dhintay labada kii shahiidkii hor dhintay mooyaane kii dambeeyey ayaa loo hor yeedhay markaasaa haddana loo yeedhay buu yidhi kii shahiidka noqday kadib baa aniga laygu yidhi buu yidhi adiga weli wakhtigaagii may gaadhin warkii baa saxaabada gaadhay waa la isla dhex maray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi miyaa la yaabantiin haabay yidhaahdeenoo labada nin dee ka hore nala dadaal badnaa kii hor dhintay ee weliba jihaadka galay ee shahiidka noqday kaas baa dee dadaalkiisu nala badnaa bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey alaysa qad makatha haada bacdahu bisana kani kan dabadii miyaanu sanad noolayn buu nebigu yidhi waxay yidhaahdeen haa waa noola ramadaanna waa soo gaadho waa soomay oo waa tukaday oo masaajidkuu ku tukaday soo maaha buu nebigu yidhi sanadaasi markaasay yidhaahdeen haa kadib buu nebigu yihi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i waalard labada nin waxa u dhaxeeya inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa yacni kan cimriga dheeraadkaa la siiyey ee dabeetana cimrigii dheeraadkaa bil ramadaan weliba u soo gashay ee bishii ramadaan soomay ee masaajidka salaada ku tukanayey
ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa acmaasha uu samaystay ee kaa hore ka xidhmay inay dhaafinayso kii hore. acmaashaana wuxuu nebigu ka tilmaamay soon iyo salaad. idan hadday qiimaha intaa leeg ramadaan iyo ajarka la helaa sidaa u weyn yahay, waxaa habboon in ramadaan loo diyaar garoobo oo aan cunno loogu diyaar garoobin. dadku inta badan waxay dhahaan bishii ramadaan baa soo gelaysa, dabeetana reeraha biilkooda la kordhiyayo cunnada aada loo badsadaa. cunnaduna waa wixii laga soomayeyba. waxay ahayd bishan in biilku hoos u dhaco oo dadku cunnada yaraysto oo la soomo. akhriya adduunba saasay faa'iidadu ku jirtaa. waxaan rabaa markaa laba qodob oo qura inaan tilmaamo. labada qodob waxay yihiin ramadaan kow waa bil qofka muslimkii uu u diyaar garoobo inuu dembiga iska reebo. waa bil uu u diyaar garoobo qofka muslimka ahi sidii sanadka ama cumrigiisaba intii tagtay dembigii soo raacay uu isaga maydhi lahaa. hami almakfira waa inuu ku noqdaa agteenna hami aad u weyn. waayo dadku saxaabada maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi saxaabiyi, markaasuu wuxuu yidhi nebigu markuu ka warramay jihaadka iyo aliimaanu billaahi iyo in la jihaatamo iyo acmaasha ugu fiican inay tahay, ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaan dagaal galo oo jihaatamo lay dilo dembigayga ma la dhaafayaa? dabeetee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam in qutilta fii sabiili illaahi wa anta saabirun muxtasibun. haddii aada dhimato ilaahay dartii jidkiisa lagu dilo adigoo sabraya oo xisaabsanaya oo soo jeeda waan dhabar jeedin oo sii ordaynin haddaad sidaa ku dhimato haabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkii baa haddana uu nebigu su-aashii dib ugu celiyo markaasuu yidhi kayfa qult, maxaad igu tidhi? ninkii baa warkiisii ku celiyey oo ah dembigayga ma la dhaafayaa haddii aan dee jihaatamo geeriyoodo? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa waa la dhaafayaa. intii hore u sheegay buu nebigu yidhi ila dayn mooyaane. daynta bini aadamka xaqiisa inta laga qaato loo indhacaseeyo kaa isaga la dhaafi maayo. jibriil baa hadda ii sheegay buu nebigu yidhi. xadiisku saxiixu muslimku ku yaallaa. idan waxaad arkaysaa saxaabadani hamigoodu inuu ahaa dembigayga ma la dhaafaya. waxa uu raadcaynayaa waxa weeyaan xataa jihaadkan iyo baabkan oo dhan inuu dembi dhaaf helo. si awgeed ba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa duul kale oo muslimiinoo hamigoodu ka ahaa. fircawn saxaradii ka hor timi ee nebi muuse markii mucjizaadkiisa ay arkeen ilaahay rumeeyey, fircoon waa hanjabay oo wuxuu yidhi waa idin laynayaa, gacmaha iyo addimadan talantaa laydin goynayaa oo waa idin salbinayaa, geedkaan idinku xidhayaa oo saasaan idin gelayaa buu ku hanjabay. waxay iyaguna ugu jawaabeen saa qur-aanka rabbi ku tilmaamayo qaaluu laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun inaa naطmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniin. dhib uma aragna bay leeyihin waxaad sheegaysa oo dhan ilaahay xaggiisaanu u noqonaynaa waayo waxaanu rajo ka qabnaa bay leeyihin in ilaahay dembiga iyaga dhaafo ayaanu rajo ka qabnaa maadaamaanu noqonnay awala almu'miniin. xadiidka iyo aayadda qur-aaniba waxay tilmaamayaan marka hamu lmakfira say dadku uga fakerayeen dembigooda inaan la dhaafo. waxay dhaafsanayaanna uu yahay inay naftooda waayaan. haddaba ramadaan waa fursad qaaliya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho. misfaat uu qofka muslimka ahi xamaamuu dembiga iskaga maydho, uskagiisa uu ku reebo. si awgeed baa axaadiista saxiixeynka ku soo arooray wuxuu nebigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhiro iyo ajarkeeda iyo wixii la faroo dhan isagoo rumaysan, waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya. casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waabu iska tiro badan yahay isagoo noocyaa. soon siyaasiyaa jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunnaday ka soomeen si ay qadiyaadkooda u muujiyaan. soon baa jira dadka badh la ysku dhuubo la yidhaahdo miisaanka si looga rido intaas inaanu wax cunin. soon baa jira xataa kuwan ay yidhaahdaan
malikaatuljamaalka iyo waxa kan aflaamta dhigiyo kuwa kan la soomiyo oo la rabo qurux inay ku yeeshaan. laakiin kani waa soon ixtisaab ah, soon danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay dembigaaga ku dhaafo. soon dantiisa koowaad iyo qaradku uu yahay iimaanan waxtisaaban. wuxuu nebigu yihi qufira lahu maa taqadama min dembi, kaa waxaa la dhaafaa dembigiisii hore. markaas haddana mar labaad nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. ninka ramadaan kaca ee tukada iyadoo shardigii weli uu yaallo iimaanan waxtisaaban ah gufira lahu maa taqadama min dembi, dunuubtiisa wixii hore uga dhacay baa la dhaafaa. haddana mar saddexaad buu nebigu wuxuu tilmaamay habeenka leylatulqadriga ninkii kaca ee iimaanan waxtisaaban la yimaada, salaad tukadoo cibaadaysta, ixyaa sameeyo nooleeya, gufira lahu maa taqadama min dembi. idan saddex shay buu nebigu tilmaamoo ramadaan ku jira oo saddexdaba dembi dhaaf lagu helo. midi waa soonkii maalinimo la soomayey, midna waa habeenkii wixii la tukanayey, midna waa habeenka leylatulqadriga oo si gaara habeenada kale uga mudan oo sanadka oo dhan dee habeenka ugu fadli badana. saddexdaa shay bay ramadaan wadataa oo saddexduba yahay in dembiga lagu dhaafo. saa awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu ku tilmaamayaa qofkan qowlu zuur iyo walcamalu bihi iyo waxaa iska tegan ilaahay cunno inuu ka tagiyo sharaab dankama laha. macnuu waxa weeyaan qardiga koowaad ama qasdiga koowaad ee ramadaan aynu u qasdiyeyno waxyaabaha ugu buuran waxaa ka mid ah inaynu u xaydxaydinno sidii ilaahay dembigeenna u dhaafi lahaa. dee qofka raba in dembigiisa la dhaafaana dee waa inuu ka dembe joojiyaa. kana hadda ramadaan baan wax walaaqaya, haddana kii hore in layga dhaafaa baan rabaa, dee waa mushkilad. haddaad rabto cutuur iyo inaad wax isku buufiso adoo uskagaaga iyo qurunkaagale la isma buufiye, marka dhididkiiyo waxa hore iska maydhaabaa la isbuufiyaa. waxaan uga dan leeyahay inay noqoto bil aynu toobad keenayno oo dabeetana dembi dhaaf ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayno oo iimaanan waxtisaabanka la sheegay uu dhab inaga yahay. saa awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalin buu mimbarka koray, dabeetana markuu jaranjaro fuulaba aamiin buu yidhaahdaa, wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa, wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa. markaasay saxaabadii weydiiyeen nebiga calayhi الsalaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiiyo aamiin baad leedahay, caadadaadana may ahaan jirin mimbarka markaad fuusho inaad aamiin tidhaahdaaye. xadiidka riwaayadda ibnu xibbaan iyo ibnu khuseyme ay soo saareen wuxuu nebigu yihi man adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu fadakhala الnaara faabcadahu اllah qul aamiin faqultu aamiin. jibriil baa ii yimi buu yidhi, ina jibriil calayh الsalaam aataanii faqaal, jibriil baa ii yimi wuxuu yidhi qofka bil ramadaan soo gaadho ee dembigiisa la dhaafi waayo. ramadaan oo la yidhi soonkaa dembiga lagu dhaafaya, oo qiyaamuleylka lagu dhaafaya, oo leylatulqadriga lagu dhaafaya, waxaasoo dhamme intay soo maraan haddana dembigiisa la dhaafi waaye naar gala, kaa ilaahay naarta ha ku fogeeyo. jibriil baa habaarkaa wada, nebi maxamedna aamiin buu ka dabalayay. waxaad qiyaastaa sayidulmalaa'ika oo ducaynaya iyo sayidulkhalqi oo aamiin ka daba leh. in jibriil la duceeyo nebi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam aamiin ka daba yidhaahdo, waxaa lagu ducaynayaana ay tahay qofkay ramadaan u soo gashay dembigiisa la dhaafi waaye. isla xadiidka oo mar labaad abu hurayra warinayo, riwaayadda imaamu termedi uu soo saarayo, xadiidkana sheekh alalbani saxiiba ku tilmaamaya, ayaa wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ragima anfu rajuli dukirtu cindah falam yusalli calay. sanka ha u dhaco ama afka ciidda ha la galo, yacni waa erey tilmaamaya qofka halaagiisa iyo dhibtiisu inaanay qiimo badan ku fadhinin. qofka agtiisa laygu soo hadal qaada buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ee aan igu sallinaynin. haddana mar labaad buu ducadii ama habaarkii ku celiyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. markaasuu ka kalena wuxuu ku sheegay rajulu dakhala calayhi ramadaanu ثuma اnsalaka qabla an yugfara lah. nin ramadaan u soo gashay
oo ramadaan ka dhammaatay intii oo aan dembigiisaba la dhaafin. ramadaan uu soo gasho ramadaan ka dhammaatay iyadoo aan dembigiisa la dhaafin. ka saddexaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin labadiisii waalid ama mid ka mida soo gaadhay oo janno geli waayey, yacnii iyaga ixsaanfalkooda janno ku geli waayey. ramadaan marka ayuha alaxiba, ereygaan raba inaan tilmaamo wuxuu yihi waxa koowaadaan u diyaargaroobaynaa waa inaynu dembi iska maydhno. diyaargarowgeenna koowaad waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala bishatan dembigeenagaga maydho. wuxuu nabigu inoo tilmaamay dembiga mid maalinle oo la maydhaa inuu jiro, acmaal toddobaadle dembiga lagu maydhaa inay jirto, acmaal sanadle dembiga lagu maydhaa inay jirto. saa awgeed buu xadiidka muslim wuxuu nabigu ku tilmaamayaa salaadaha shanta ahi dembigay maydhaan, midba tii ka horreysay intii dembi aad gashay bay maydhaysaa. jumca ilaa jumcana dembiguu maydhaa, ramadaan ilaa ramadaanna dembigay maydhaa haddii kabaa'irta laga fogaado, waayo kabaa'irtu dee dembi dhaaf bay waxay u baahan tahay toobad. sakaa'irtu laakiin dee horta ma yara. kitaabka la qorayaana laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha baa ilaahay tilmaamayay. adi waxaad qiyaastaa subaxii waagu markuu kuu bariyo aad indhaa kala qaado ilaa yaa intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlaysa ama mid hadlaya dhegaysanaysid. waagu markuu kuu bariyo ilaa yaa intaad ka seexanaysa inta ka dhex leh ama adaa warramaya ama qaar warramayaad dhegaysanaysaa. inta aad cibaado samaynaysa gaari inay iska tirsantaa laga yaabaa. waxaad dib u xisaabisaa intaa inteebaa talow khayraad ka shaqaynaysay oo aad is leedahay miisaanka xasanaadkay ku qormaysay, intaad se is leedahay miisaanka sharkay ku qormaysay. acmaasha aynu samaynaynaana hadday dee acmaal kaamila tahay waa dhab way dhaafaysaa. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo salaadba salaadda ku xigta hadday dembiga dhaafayso jimcaha maxaa u soo hadhaya? ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatee. se jimcaba haddii toddobaad kasta jimcaha lagaa dhaafayo ramadaanta maxaa u soo hadhaya ay dhaafaysaa? horta waxa isweydiinta leh salaadaha dembiga dhaafa waa kuwe? ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata طarafiya الnahaari wazulfa min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikra lلdaakiriin. waa dhab in salaaduhu dembiga maydhaan, laakiin nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka abu daawud iyo nasaa-i iyo keyrkood ba warinayaan, sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo ina الrajula layansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cushru salaati. midkiin buu nebigu leeyahy salaad buu tukadaa iyadoo aan salaaddii looga qorin 10 meelood oo meel mooyaane 10% 10% ayuu salaaddiisii leeyahay. qaar baa tusuc leh 9 meelood oo meel, thumun wuu soo waday ilaa uu qaar soo gaadhsiiyey 50%, qaar baa 50% leh. dee salaadda horta inta aad soo jeedaa baa laguu qorayaa oo maqbuula. inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin. inta aad soo jeeddaa ilaahay la khitaabaysa dhabtaa baa laguu qoraya, oo inta kale maxay noqon xaalkeedu ilaahay baa garan. laakiin kolleyba cidi ku odhan mayso salaaddii mar labaad tuko. salaaddu adiga way kaa hadhay tukashadeediiyo mar dambe lagu qabsan maayo, maxaad u tukan weyday? laakiin wixii la rabay ma helaysaa. sidaa awgeed ba safka waa ku wada jiraa, laakiin isku ajar ma nihin. isku wax ma duhur la wada tukay ama casar la wada tukay, laakiin casaradu ma sinna. ilaahay waa loogu kala dhow yihi, surankuna kuma sinin. ramadaantuna waa sidii oo kale. idan jafjafkeenna marka la isu geeyo haddii wixii casar iyo duhur intii u dhexaysay ama subax iyo duhur intii u dhexaysay jafjafkaagii la isu geeyey hadday dhammaystiri waayaan ta dambaa waxoogaaga lagaa jafaya. haddii waxoogaagaagii marka la isu geegeeyo ilaa jimcaha jafjafkii uu isu tari waayo dee salaatuljimcaha maydhaysaa. usbuucyadii wixii ka soo hadhanay hadday suurtoobi weydo ramadaantaa meesha loo diyaargaroobo in la iska maydho sanadka wixii ku soo raacay. sanadka wixii ku soo raaco dhan inaad iska maydho ramadaan baa meesha loo diyaargaroobo. sidaa awgeed waxay leenahay shayga ugu horeeya
ee aan rabno ramadaan inaan u diyaar garownaa waa inaynu dembi maydhno wixii aynu dembi soo gallay inaynu iska maydhno bisha ramadaan gudaheeda xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo saddexdaa noocba in dembiga loo maydho inaynu u diyaar garowno qodobka labaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan aadanuhu iyadoo furaska wakhtiyada fursadda aad helayso lama dayaco maalan ninka taajirka ahi ee dukaanka yar ee dharkaa haysta wakhtiyuu u diyaar garoobaa in xog wax loo iibsanayo maalan dadka muslimiinta ahi wakhtiyada ay dharka gataan maxaa u badan caruurta iyo reeraha waxaa ciidaha u badan bacdlu hadduu ciidda seexda ka waran aanuu ku talagelin labadii ciidood inuu wax iibiyo waxaa laga yaabaa sanadka o dhan wuxuu iibinaya inay ka badato wuxuu iibiyo maxay labada tan wakti saa daraaddeed baa nin kastoo tijaarada ku jira wuxuu isku dayayaa inuu u diyaar garoobo inaanay dhaafin fursadda tani noloshoo dhan baa caynkaasiya cid waliba wakti ayay furaskeeda heshaa oo tijaabisaa inaan fursadda aanay ku dhaafin diin ahaan markaad ajar ka fakerayso salaadaha kala ajar badan maalmaha kala ajar badan habeenada kala ajar badan acmaasha la qabanayaa kala ajar badan awraadda la akhrinayaa kala ajar badan qofka xoogga u fakaraya wuxuu isku dayayaa wax walba xagga sare inuu ka heli karo wa fii dalika falyatanaafasil mutanaafisuun inaad xagga hore marto bisha tani markaa waxay ka mid tahay furaska ugu badanee dadka muslimiinta ay ajarka raadiyaan ajarkii ugu badnaa sidaad u heli kari lahayd waa wakhtiga kan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay acmaasha kale oo dhan bini aadamkaa iska leh soonka mooyaane fa innahu lii waana ajzi bihi soonka se anigaa iska leh oo anaa ka abaalmarinaya wasiyaamu junna gaashaan buu idinka yahay dembiga haddii midkiin maalintiisa soonta uu sooman yahay yuu rafad samaynan afxumo yuu ku hadlin yuu buuqin oo caytamin yuu dadka maagin haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa war waan soomanahay xadiidkaa dheer inagu qaybta ugu horrayso quraan hadda uga dan leenahay soonka anaa iskale baa ilaahay yidhi acmaasha o dhan macidaan ilaahay ahayn baynu u samaynaa maya camal kastoo aynu isku dayno aynu la nimaadno dee ikhlaas ixtisaab baynu ula nimaadnaa ilaahay subxaana wa tacaala waxay culammadu isweydiiyaan maxaa soonta rabbi xaggiisa gaar loogu yeelay waxay culammadu yidhaahdaan iyagoo deliishanaya xadiidka imaam النasaa'i sanadka صaxiixa uu ku soo saaray kulu xasanaةi yacmaluha bnu aadam falahu 10 amhaaliha ila الصiyaam acmaasha qofka bini aadamkii sameeyo waxaa loogu jaangeeyaa jaangoynta ugu yara waa 10% waa halkiiba 10 laab halkiiba 10 laab 10% maaha yacni waa midhkaad samaysaba in lagu 10 laabo 10 laabku luqadan dambe ay ku hadlaan haddaynu ku sheegno dee waa 1000%. ilaahay subxaana wa tacaala waa kariim waa deeq badan yihi midhkii haddii midh lagugu siiyo dee waa 100% baad faa'iida boqolkiiba boqol baad heshay intaad samaysay in leeg laakiin marka la 10 laabo waa aad buu u tiro badan yahay waxaa qur-aanku kaloo inoo sheegay kuwo intaa ka badan yahay oo 7 sanaabil aayaddii kay tilmaamaysay 700 jeer qaar loo laban laabayo waxaa kaloo la sheegay qaar looga badiyo culammadu waxay idhaahdaan mawaasiinta wax lagu qiimeeyo kale qur-aan iyo xadiidku in badan bay ka hadleen laakiin mas'alatu soom hadday noqoto soontii alla rabay oo ah taa iimaanan waxtisaaban loola yimi taa aan buuq iyo qaylada iyo dagaalka iyo afxumadu la soconin taa cibaadaadka iyo ilaahay loogu dhowaanaya leh tii rabbiina amray soontii ahayd haddii loola yimaado iyadu miisaankaas oo dhan way ka baxsantay macnaheedu waxa weeyaan ajarkeedu wuu ka badan yahay bay culammadu ku tilmaamayaan oo waxay leedahay ajar markaasi ka badan yudaacifu liman yashaa ah wallahu waasicun caliimka ah saa awgeed
يا أحاديث بدن وحكو أرورتي كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وحديث صحيح كوي الله أما القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي مفسرين تكت المامان لك قور رميه وحنو قدن لا إياه بس هذا هو فرصة inaad ajarka ugu badan shaqaysan karto waa acmaashaan ajarkoodu mawaasiinta aynu naqaano aanay ku jirin ayay soontu ka mid tahay sida awgeed waxaa habboon inay bisha tani qofka muslimkii uu diyaargarow dhaba uu diyaargaroobo oo ah si aad maximumka u gaadho waxa fiican acmaasha dunawiga intaad iska yareyn karta inaad iska yarayso oo deeyada bishan acmaasha la qabtay gaarka waxa kamid ah wixii i'tikaafka loo oran jiray i'tikaafkuna waa in aad masaajidka isku soo xidho aad acmaasha dunawiga oo dhan oo kale inaad iska timaado xataa iyadoo laga yaabo acmaasha lafteedu qaar ajar ku jira inuu yahay waqtiyada tan waxay yiraahdaan waxa sii fadli badan inaad tan cibaadada maxdiga aad u sii baxdid erayadan tilmaamaya markaa waxay ku kooban yihiin bisha tani in loo diyaar garoobaaba fiican laakiin maxaynu ugu diyaar garoobaynaa ma cunno iyo wax la mid ah mise waxaynu ugu diyaar garoobaynaa inaynu heli karno wixii dambi aynu xambaarsanayna inaynu iska rogno iska reebno ajar inta la shaqaysan karaya intii ugu badnaydna inaynu shaqaysanno sawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista iyo nusuusta badane ka soo aroortay waxay tilmaamayaan acmaasha la sameeyo inta badan ramadaantu xataa fii gayri ramadaan inay ka fadli badan yihiin quraan akhris ha noqoto sadaqa la samaynaya ha noqoto salaadaad iyo cibaadaad la samaynaya ha noqoto waxaan oo dhamma ujuurtoodu inay tiro badanayso marka bisha tani waa bil u baahan zaad qaadasho inaad u diyaar garowdo zaad qaadashadaasi waxay keensanaysaa acmaalu dunyaa dhammaanteed inaad yaraysato acmaalu laakhirana inuu noqdo hamiga weyn aad u socotaa haddii dadkaas qur-aanku uu ka warramay ama xadiistu ay ka warramtay ay rabtay dembigooda in lagu dhaafo in qudhoo la iska jaro oo uu nafta u bixiyo oo uu leeyahay bidix iyo midig iyo saad doonaysa noo googoo waxaanu طamacnagaga jiraa ilaahay dembi dhaafkiisa nebi maxamed wuxuu inoo sheegay bisha tan inay tahay bishii dembi dhaafka marka anigu kelmadayda caawa waxaan kusoo koobaya waa labada qodob oo qura oo war haddaad doonayso in ilaahay uska geeyo dembigii waxa mashaakilina haystoo dhamina waa dembi waxa dhibina haystoo dhamina waa wax dembi ka yimi waa bimaa kasabat aydiikum dunuubta haddaynu rabno inaynu iska reebnana inaynu bishan u diyaar garowno oo bishii dembiga la maydhi jiray haddaynu rabno acmaasheenna inaynu maximumka gaadhsiin karnana oo ah ajarka ugu badan inaynu heli karnana waa bisha la shaqaysta ajarka ugu badaniye inaynu yana isku dayno halka ugu sarraysa inaynu gaadhi karno warkayga caawa intaas baan ku soo koobaya sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam والحمد لله رب العالمين. shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka. internetka bilaa aan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. Hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay.